السلام عليكم أصحابتي آد ياد بان دي السلامية عاد الله يسوع دواده ما أنتوا حنكارلنا قصة آد ياد وحنون بدل آد ياد dadkii dhageysta wallahi aad iyo aad ay uga murugoodeen maanta qisada waxay ku saabsan tahay qisada waxay ka dhacday wadamada Carabta kadibna waa aabo saddex caruur lahaa saddexdiisii caruuraha ayaa aabahani malyan dheer ayuu ahaa kadibna aabahood ma ixtiraami jirin maraliya markuu lahaa dima wax weydiyo si xumeeyay oo tacaamil jireen kadib aabihii odayga aad iyo aad buu uga xumaaday marka wuxuu nin buu asxaab ahaayeen ayaa marka uu reerkiisa tago ama gurigiisa tago caruurtiisa aad bay u soo dhaweeyaan oo saaxiibkii dhalay aad bay u ixtiraamaan kalgacayl ay u muujiyaan dabeetana odaygu iska jeclaaday markuu arka caruurtiisiyo muxuu ahaayay si xun ula tacaamilaysa caruurtii kale ayuu kalgacayl u qaaday caruurtii dabeetana saddexdiisa caruur mar walba wuxuu ku oran jiray dhaxalkayga wuxuu ku milixdinidku wadarka doonta waxaan siin doonaa ninka aanu saaxiibka nahay caruurtiisa ayaan ku wada qori doonaa iyaga marka waxay u haysteen sheeko kaftana laakiin odayga serious ayaa ka runna way ka ahayd kadib odaygii fajaa sidii uu isaga joogay xaq ayaa ku yimid oo dhintay markii uu dhintayna wuxuu ku qoray lacagtii saaxiibkiiba ku qoray saaxiibkiina isaga laakiin wax waro muu haynin markii la aasay ee aaski dhamaaday ayaa waxa uu yimid ninkii muxaamiga ahaa markaas uu waraaqahani waxaan iga wada gudoon laan xoolihii adka ayaa lagu wareejiyay odaygii wuxuu ku noqotay sheeko filan waaya laakiin oday ninkaas saaxiibkii marnaba isagu muu niyeysan in xoolahan ka qaato caruurtan maanu isasiino muu oran hunguri ka mugalna mooran mar hadii adiga lagu siiyay odaygiina dhintay iska qaada maxaa ka galay nin aad iyo aad u fiican buu ahaa odaygii markaas sidaas ku dhintay inamadii markay ogaadeen lacag uga tagay lacag waxa la 100 milyan oo kaliya ayuu akoonkii ugu raabay laakiin lacag xadad lama yahayn baa la odaygu maalku ilaahay siiyay marka warkay arkeen akoonkoodii waxa ku jiray intaatay way yaabeen in lagu wareejiyay way ogaadeen odaygu markii hore uu sheegi jiray uu sheekadii aabahood ka dhabeeyay kadibna way muxuu haayay umay tagin inamadii in saddexdii caruuraha umay tagin ninkii oo oran xoolahayga noo soo wareejiyo xamna oran maxaamiya ay dalbadeen maxaamiyadii markii ay dalbadeen mid walba wuxuu yiraahdaa sheekada waa sheeko caayli anagu shaqo ma lihineedu ku soo taxalinaysan xalliya markii dambe nin maxaamiya oo nin iska dhalinyaro ayaa yiri aniga sheekadan idin dhameynaya hadii aad xoolaha markan anagu idinku soo aad heshaan aad siisaan sharad baan idin la geliyaa dabeetana sharadkii bas la galeen wuxuu yiri adduunyada marka xoolihiina la idinku soo wareejiyay heshaan 30% ayaan yeelanayaa way waafaqeen waxay yiraahdeen hay dabeetana maxkamadii baa wixii la geeyay ninkii waa loo yeeray dabeetana markuu maxkamadii tagay wuxuu aabahood caruurtan xoolahaas u lahaa xoolihiina ninkaas saaxiibkii ku wareejiyay ninkan saaxiibkii xaq uma lahe awlaadan xaq ayay u leeyihiin ma in xoolahoodii lagu soo wareejiyo dabeetana ninkii baa la hadlay waxa sheekadaas ma jirtaa haa buu yiri marka dabeetana maxaad ka qabtaa wuxuu waxa kama qabo cidina marka hore inamada ciyaarku iman waxna la ima weydiin imankana diyaar baan in xoolahoodii aan ku wareejiyo waayo iyaga xaq u leh in aad iyo aad buu fiican buu ahaa dabeetana sidii baa loogu soo wareejiyay ninkiina sidii uu kaga markay saddexdii ay qaybsadeen mid walba 100% ayuu ka qaatay ma sha Allah isaguna gaasoo xoolo weyn kula kacay marka maxaynu ka baranaynaa sheekadan waxaan ka baranaa in waalidku xaq ayuu nagu leeyahay ilmuhuna xaq buu leeyahay laakiin hadana xaqa waalidku aad iyo aad in la xishmeeyo in la qadariyo in loo naxariisto aad ay u fiicantay marka maadaama aynu awlaadu inay waalidkoodu naxariisato gal iyo gardaraba waayo waalidku waxa weeyaan marka hadal yar oo kulul lagu wada ama si xun loo eego wallahi wada maqadaan marka waxa weeyaan waalidka in kastoo kugu adagay hadana qushi waa waalidka uu ku dhalay xaq ayuu ku leeyahay inaad u dulqaadato inaad wanaag ka eegto oo waxba xunaan dareesin ayaa wanaagsan marka waxa weeyaan in waalidka loo naxariisto in waalidka muxuu ahaayay la kalgacayl la tuso way u fiican tahay marka maadaama inagu aan muslim nahay had iyo goor wallahi dhaxalka weyn wanaajina in kastoo dadka waqtiyadan inuu joogno wallahi dhaxalka la iskaba wada cunaan ciidiba aanay xaqii diinta loola kiciraan ee ula kicinood nin walba halka goosan oo ka goosta marka dadkeenuna had iyo goor ma yaqaanaan wasiyada la sii qoro ee qofku muxuu haayay
dadka hadda ma gaalada ama dadka kale muxuu ahaay carabo wasii qoran wasiya yiraahdaan marka sii qoran qof walba intiisa siiyaan qof walba muxuu ahaay hadaan kolka matalan qofkii aanu intuu fajo oo dhintaan wixii aanu isagoon isku sii hagaajin marka inagu hadii aynu muslimnahay way jiraan waalido badan oo sii dardaarmo oo yiraahdo qof walba wax siiyo qof walba intaas uu qof walba siiyo qaar aan waxba sii darmaamina hantido sidoo buuxda ka dhinto marka dambe xaqina inagu diinta islaamka isku xukunaaye diinta islaamka qof walba wuxuu leeyahay la siiyo sidaas inagu aan ku dhaqanaa insha Allah waxaan bareynaa in waalidka loo naxariisto wixii anti uga dhigtana sidii xaq u yahay lagu kala qaybsado waxaan doonaa fiidiyoga subscribe ka saartaan share gareysaan insha Allah qisad kaliya mar dambe soo noqdo wanaagsan aad iyo aad baan idin salaamayaa maalin wanaagsan